بسم الله الرحمن الرحيم سومالي محمد السلام عليكم سيلي هاي ملفايا ملفي عني هاي ساكا تشويق و سويدن غوريغيغا اكتيسا arkaysan meesha yar waxaan iska fadhiyaa ubaxa leh gurigaygeena waa halkaas ku yaal waa guriga albaabkaas leh meeshaan marka waa meel yar oo la iskaga soo baxbaxo oo maaragtay hadda inta tusoo kale waxay ahayd ciyaaladu ku cayaaraan marka halkaasaan fadhiyaa maantay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Soomaali Maxamed meel kasta aad joogtaan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan meel kasta aad joogtaan Soomaali Maxamed walaalahay saaxiibaday فرانسكيga familigayga fanskayga kulligeen waan salaamay salaan waxaan hawada idin soo marinayaa qaali ah waa nasteexa samafale marka ma sha Allah waxaan leeyahay ciid wanaagsan hadii raalin ahaada suulkaas ayaa meesha iga marmaray siday tahay noqotaba ciid wanaagsan Soomaaliya meel kasta aad joogtaan saaxiibayaal ciidaas iyo salaantaas la dhaafi waayay waxaan idin leeyahay hambalyo ciida waxaan kaloo rabaa inaan maaragtay u tacsiyeeyo gabdhaha iyo Soomaalida iyo hooyooyinka caruurtu ka dhimatay gabar walaashay oo la yiraahdo Shankaroon baa wiil ka dhintay walaashay waan tacsiyeedinaynaa iyo aabaheed iyo qaraabadeeda iyo saaxiibada iyo faamilada iyo hooyooyinka xaafadaha kulli waa ugu shactacdeynaa intii ilmuhu ka dhinteen oo dhan waxa weey marka dhimashadaas waxay ku saabsan tahay ama ay salka ku haysaa waa Soomaaliyo isdilaysa wiilasha Soomaaliyeed islaynaya isxabadeynaya maxay ahaaytay runtii aad ayaan ugu xunahay hooyooyinka waa la xanuunsanahay kulli waxa weey hooyo wax dhashay waa dareemi kartaa waa wadamadan Yurub iyo Canada iyo America iyo wiilasha yarar isku xabadeynaya isku leynaya oo maaragtay aad baan ugu xunahay waxaan leenahay waa ka tacsiyedeynaa waxaan leeyahay dhalinyaradeena meel kasta aad joogtaan haddaad Yurub joogtaan iyo haddaad America joogtaan iyo haddaad joogtaan Canada aad baan u xanuunsanaynaa hooyooyinku way xanuunsanayaan markii aad maaragtay isxabadeysaan oo isdishaan oo isdhamaysaan hooyo waa hooyo wax dhashay waxbay soo korisay waxay rabtaa cunugeedu markuu u soo weynaado oo ay rabtay inuu wax taro ayaad maaragtay islaynaysaan isdilaysaan inaad u soo shaqaysaan bay rabtay inaad maaragtay wax tartaan bay rabtay inaad qorxoonaataan bay rabtaa hooyadu jaamacada ka baxdaan u shaqaysaan hooyooyinka isku soo tuliya tacabeelay maxay ahayd aad iyo aad ayaan uga xunahay inaad islaysaan inaad isdhamaysaan inaad isxabadeysaan mideeda kale waa magac xumo u soo hoynaysa Soomaaliya meel kasta Soomaaliya joogta way ku kala daadsan tahay way isku laynaysaa way ku dayacan tahay waa qaxooti madax iyo majo aan lahayn meel kasta aan joogno ummadii waa la yaaban yihiin adduunka waa la yaaban yahay hadda waxaan maqlaayay wadanka Turkiga ayaan dawad waa laga soo qeeliyo waxa la yiri Soomaalidii 10 cunug bay wataan 9 cunug bay wataan maxay ahayd waslaynayaan waa qeyliyayaan haddana 10 reer kale 10 wata ku soo dul dagaaya marka waxaan hawada u malinaynaa hooyooyinka Soomaalida iyo aabbayaasha Soomaaliyeed horta inaad bal is aruurisaan maxay ahayd mideeda kalena wallahi su'aal laha Soomaali waxa waaye reerkiiba 10 cunug 8 cunug 9 cunug dhowr iyo 10 cunug dhalahayaa maxay ahayd ayada oo maaragtay ilmihii laga yaabo inaan la xanaanayn oo aan maaragtay waxbarashadooda laga fakarin oo aan ilmihii baleen loo samayn waxa weey intay tagooggaaga ku jiri lahaayeen tobaha haddaad sanaadeen waa laga baxay ilmihii haddaada wax barin oo aad ku dhiman waxa weeyaan waxa weeye waxaan adduunkii oo dhan baa naga yaabay
adduunkii oo dhan ba hadda naga yaaban Soomaali haddaan nahay dalkaygii waa dhibaato meel kasta aan tagnay dhibaatana la ka sheeganaya meel alle meeshaan rabta aad ku qaxdaan oo adyaan ku tagtaan waana la ka sheeganaya waana la ku dhagan yahay marka walaalayaal bal waxaan dhihi lahaa bal dhanka culummadana ha loo bayro anigu waxaan ba isleeyahay ilmaha in la dhalaa oo 10 cunug aad dhashaa janno kuma gelisid baan isleeyahay ilmo yar oo ilmo aad ka bixi karto oo hooyada iyo aabuhu ay ka bixi karaan marka ay dhalaan inay dhalaan baa fiicnaan lahayd marka waxaan dhihi lahaa Soomaali Maxamed ee horta iid wanaagsan waana ka tacsiideynaa ilmahaas dhamaynaayo islaynaya hooyooyinka iyo aabayaasha waa u tacsiideynaa Soomaali oo dhan waa u tacsiideynaa maxay ahayd bal hadda dibna hal iskugu noqdo hal la fiirsho bal ma aragtay in haddii diinteedu waxay ka qabto inta la fiirsho awlaadda intay tubaha daadsanaan lahaayeen tagoogeedna ha noogu jireen waana insalaanay ciidan la dhaaf waay salaantay intaasoo yaro saaka igu soo dhacday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaam Soomaaliyeed